Waa salaam. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Soo dhawaada. Baryahan siyaasaddu waa qasan tahay. Waa ogtiin nimankii argagixisada ahaa way soo laba kacleeyeen. Ayagoo wata qorshe sirdoonnada caalamiga ay soo abaabuleen oo uu ka mid yahay Maraykanka iyo Yuhuudda iyo Imaaraadka iyo ay ku jiraan Faransiiska iyo xataa Ingiriiska uu ka mid yahay. Arrintaas oo ah arrin soo ifbaxday markii ay uu si rasmi ah ugu dhawaaqay heshiiska sida rasmiga loo saxiixay in Turkiga uu ka samaysanayo satellite base meelaha area-da oo magaalada Muqdisho inuu iyo saldhig weyn oo military sidoo kale uu maaragtay xiiseynayo inuu badda Gulf Arab Gulf uu soo dego Gulf of Arab ama Gulf of Aden ayaa la yiraahdaa Aden gacanka cadmeed afka Soomaaliga wax lagu yiraahdo. Annaga sida ogtiin Soomaalida waa u dhowdahay Red Sea-ga ama badda cas u dhownahay dhul ahaan annaga Red Sea mariin Red Sea wuxuu ka bilowdaa Djibouti ka bilowdaa laakiin waa meesha laga soo galaya ayaan deganahay marka waana la ku tiriyaa wadamada dhaca badda cas. Marka qorshahaas iyo qorshaha shidaalka uu Soomaaliya rabo inuu Turkigu ka soo saaro oo Carabtu aad uga xumaatay Maraykankana looga dacwooday Maraykankana in badan lagala hadlay laakiin uu dual policy waxa la yiraahdo isticmaalayo siyaasadda laba wajileynta ah waayo Maraykanku ma rabo in la qaybsado shidaalka Soomaaliya ilaa 1950gii ayuu ku fadhiyay oo kayd ayaa u nahaa asaga Soomaaliya biyaha ku jira water ground maaragtay biyaha ku jira Soomaaliya aad u badan oo dhulka hoostiisa ku jira iyo shidaalkaba Maraykanka bay u reestaysan inkaas waa la reestayaa maqla jira dadka ciidanka askarta Soomaaliya garanaya afkaas Soomaaliga. Marka waxa la yiri oo la soo dejiyay intii uu satellite-ka uu ka samaysan lahaa Turkiga oo uu gantaalaha ka tijaabinayo satellite-yada waqti Soomaaliyana hay'ad kasta oo isgaarsiineed oo mustaqbalka dhow technology-ga maaragtay maxaa la ishig baalkan la yiraahdo ishig 5G-ga waa inay Soomaaliya satellite-keedu soo dul istaagaa maadaama Soomaaliya dawlad noqotay dawlad aqoonsiga noqotay waa in laga haystaa ogolaansho laga helaa haddana waa arkaysan Elon Musk inuu maaragtay ishig uu mid ka mid ah hay'adihiisa oo internetka adeega internetka uu Soomaaliya u soo wareejiyay oo maalintii uu publish shaaciyay marka arrintaas jirta oo Maraykanka iyo ay ka soo horjeedaan iyo Yuhuudda iyo waliba Imaaraadka iyo Yuhuudda aad uga soo horjeedaan ayaa waxaa la qorsheeyay in shabaabo uu qabsado koonfurta Soomaaliya Muqdisho qabsado oo sida Taliban oo kale ay ula wareegaan dalka dabadeedna maaragtay sheeg meeshaas ay ka baxdo rajadii Turkiga uu meeshaas uu ku degi lahaa markaas ka bacdina la qorsheeyay waddanka Soomaaliya cunaqabad maxaa la yiraahdaa waxa qabsaday terrorista qabsaday lagu duulo oo maaragtay ciidamo caalami ah la keena Europe ciidamo keena NATO ay markaa sidaas ku gasho ayagoo maaragtay ishig Maraykanku uu hogaaminayo oo interestiga weyn ee Maraykan Turkiga uu helay Soomaaliya lagu qabsado ama laga riixaba qorshahaas marka uu socday waa ogtiin in oo xataa shabaabka duqeynta laga joojiyay diyaaradaha Maraykanka markii la wacay ay soo daahayaan dadweyne shacab meelo ay maaragtay ishig ay targetka aysan si toos ah u duqeynayn hal bar diyaaradu si timaada hal meel inta ku dhufatay ka bacay iska tagayso inta la dalbahayna ciidamadu ayba waqti dheer ku qaadanayso marka su'aashu waxay tahay hadda Turkigu interestigiisa ma difaacan doonaa mise qorshaha kulli uu la socdaay Imaaraad iyo Yuhuud iyo Maraykan buu uga hari doonaa taas waxay ku xiran tahay dawladda Soomaaliya siyaasadeeda arrimaha dibadda oo si fiican loo hagaajiyo khaasatan siyaasadda maaragtay shaq proxy war-ka oo Masar iyo Turkiga u dhaxaysa waqtiga Masar iyo Turkiga marmarna waa isku fiican yihiin marmarna aad bay isku xumaadaan ayaamahan marmar dhaxaas hadda isku fiican yihiin laakiin ayaan dhaxaas isku xumaadeen kadib markii ciidamada Masar ay la sameeyeen dowlatus military ciidamada Yuhuudda iyo Greek iyo Faransiiska oo
badda Mediterranean-ka lagu sameynayay Greegana iyo Turkigana waa ogtiin aad bay baddaas iskugu haystaan oo heshiiskii maxaa la yiraahdaa 1923ga Louisiana la dhihi jiray oo Switzerland lagu qabtay oo Turkiga badda Mediterranean-ka jasiirado badan uu lahaa looga qaatay baddi lana soo xadiday la yiri shidaalka ma soo saari kartid Istanbul canal maraakiibta intay doontay mari karta kama qaadan kartid wax canshuur lagama qaado hadda boqolkii sano ay u dhamaatay hadda dhow ay u dhamaatay 2023 hadda ay u dabaaldegayeen 100 sano ayaa laga saxiixay inaysan baddaas wax oo shidaal ka soo saari karin wax baaritaan xataa iska sameyn karin marka Turkida waa la isku tagay waa ogtiin wadamada badan isku tagay oo Ingiriiska kamid yahay Talyaaniga Faransiiska Greega oo ku jiray maxaa la yiraahdaa Czechoslovakia ay ku jirtay Austria ay ku jirtay Japan oo ku jiray wadamo badan ayaa isku tagay oo dagaal koobaad adduunka ku guuleystay ayaa xoog maartay kaga saxiixay heshiiskaas hadda saxiixina waxa la yiraahdaa Turkiga inta hadda haysitiin ayaa la ku qabsanaya waa la kala jarjaraya sidaas uu ku ogolaadeen ay dawlad ku noqdeen Mustafa Kemal Atatürk uu maartay Osmaniyiintii Osman Empire uu ka tanaasulay oo loo bixiyay Turkish Republic markaas la abuuray waxa taariikhdas dib ugu noqomayno qof walba uu og yahay qofka ka soo akhriyay laakiin siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya markii Soomaaliya intay Turkiga heshiis la saxiixatay ay haddana inta baxeen Masar keeneen Turkida aad bay back up bay sameeyeen gadaal bay u noqdeen waayo Masar iyo Turkiga siyaasadoodu ma wanaagsana baddaas isku qabtaan mar walba xataa macnaha ishag Turkiga masaaridu ayadoo ku xumeynaysa Sisi Turkida ku xumeynaya xataa maartay maxaa la ishag uu baddiisa soo yareeyay EEC-giisa marka iyo maxaa la ishag shelf continentiga badda biyo dhagaxeedka badeed Masar ayuu xitaa soo leexiyay asagoo ku xumeynaya muranka ka dhaxeeya Turkiga iyo Greega asagoo ku xumeynaya Turkida marka masaaridu Turkidu way shaqeeyaan waxay dawladda Soomaaliya heshiis baan la galnay ilaalinta badaha iyo maxaa la yiraahdaa heshiis difaac fiican baan la galnay maxay Masar haddana u keeneen yani siyaasad la isku haleyn karo oo degan oo arrimo dibadeed ayaa la rabaa oo wadanka saaxiibka ah xataa Masar hadaa la heshiinaysid yani dalka oo adiga oo garabka ku ah waxyaalaha qaarkood waa lagala tashadaa oo maartay interestiga iska hor imaanaya ee wadankaas dalkaas iyo dalka kale la heshiinaysid waa la iswaafajiyaa interestiga waxaana loo qeexaa qodobada aad ku cashiinaysaan ee adinka dantiina ah ayagana waxaana la iswaafajiyaa heshiiskaas inuusan labada dan iska horkeenin ee dal marka proxy warkii Masar shaki badan buu galay oo maxaa la yiraahdaa ishaga Turkida xogaa dib bay back up u sameeyeen haddana ayadoo saas ay tahay masaaridii laftigeedii la keenay ayaa haddana waxa laga dabageeyay heshiiskii Addis Ababa oo Abiy Ahmed iyo Xasan Sheikh ay ku galeen masaaridii haddana ayadiina waa shakisay iyo Eritrea oo heshiiskii saddex geesoodka asagana back up bay Eritrea iyo masaaridu ka sameeyeen oo waxay yiraahdeen siyaasadda Soomaaliya maba ahanba mid degan oo la isku haleyn karo ma dalkana siyaasaddiisa arrimaha dibadda haddaysan aad u deganayn yani heshiisyo badan lagulama galaayo marka waxaa la rabaa Xasan Sheikh yani siyaasaddiisa arrimaha dibadda inuu dejiyo interestiga Turkidana uu maartay sheegay Turkiya wadamo badan oo islaam ah oo maartay ay argagixisadu soo weerareen iyo kooxo falaaga ayay ka badbaadiyeen oo maartay sheegay ay difaaceen oo ay kamid tahay wadankan maxaa la ishag Azerbaijan oo kale markii dagaalkii nimankii Albaniyaanta ay soo riixeen oo Ruushka caawinayay wuu caawiyay Liibiya kamid ah waa caawiyay Addis Ababa xataa hadda markii Tigreeda ku soo dhawaanayaan wuu caawiyay Liibiya hadda waa aragteen Suudaan sidoo uu caawiyay waa aragteen in qoliyii maxaa la yiraahdaa dacmo sariic si fiican looga adkaaday oo meel xun la gaarsiiyay waad ogtiin sidoo kale markii Qatar la go'doomiyay oo dawladaha Khaliijka ay go'doomiyeen Turkiga inuu gurmaday marka Turkidu waa dad qowl leh oo saaxiibtinimada ku fiican interestigoodana aad u difaacda waxa marka in Xasan Sheikh ay si rasmiya yani ay maartay ishig ayagoo siyaasadoodu degan tahay oo caddahay inay Turkida la hadlaan oo Turkigu uu interestigiisa uu difaacdo oo ciidamadii lagu heshiiyey 4,300 ahaa ee cirkiga dhulka yani ishig ciidamada cirkiga ciidamada dhulka ahaa oo dagaalka ka qayb qaadanaya heshiiskii la galay
Ankara lagu saxiixday waa inuu ka dhabeeyaa ciidamada si degdeg u keena waa loo baahan yahay sababtoo ah international community la isku haleynayay waa back up bay sameeyeen gadaal bay u laabteen AMISOM waa aragteen waa iska fadhiyaan ninka ku-xigeenka wuxuu qoraya United Nations hortiisa ka maaragtay ka akhrinaya Security Council-ka waad aragteen yacni waxay leeyihiin baa la heshiiyey shabaab si dowladnimadii bay u dhaqmayaan marka siyaasadaha noocaasa markii ay yimaadaan waxaa la rabaa siyaasad degan in la sameeyo oo inta oo Turkida ka imaanaysana waa in ciidamada lagu sameeyaa maxaa la yiraahdaa refreshment ciidamada waa in dib loo habeeyaa saraakiisha la bedelaa dagaal ku fashilantay ciidamada dib habeyn loo sameeyaa dib macnaha dhiirigelin loo sameeyaa dib habeyn la isku sameeyaa aagaga loo kala bedelaa ciidanka mesela ba hadda ku jabay maxaa la yiraahdaa ishig aadan yabaal kale aadan yabaal in lagu celiyo waa in la bedelaa oo meelo kale la geeyaa kuwa gobolada dhexe joogo kale halkan la keenaa hal marna dagaal midaysan oo afar geesooda ama shan geesooda xamar dhinaciisa laga qaadayo aboorey laga qaadayo mise gawaay aadan yabaal laga qaadayo ceel dheer laga soo qaadayo wabxa laga qaadayo dhinaca ceel bur la aadayo xar dheer dhinacaas laga soo qaadayo la soo aadayo maxaa la yiraahdaa ishig jawlo iyo dhinacaas la soo aadayo dhinacaas kalena shabeelow laga soo dagaal galayo camaara iyo caad iyo shabeelow ayagana xagga laga soo galayo haddii la bilaabo shabaabka dhanba 2 wiig ugu badnaan hal bilaal looga saari karaa shabeellada dhexe iyo guud ahaanba gobolada Hirshabelle iyo maxaa la galmudug kale marka istiraatiijiyad fadhida saad iyo isgaarsiin iyo maxaa la yiraahdaa ishag iyo shidaal iyo rasaas ku filan haddii la helo ciidan waa la haystaa ciidamada shabaabka meelaha jooga isku dardaro dhan kulligood haddii la isku keeno 4,000 ma dham ciidanka Soomaaliyana ilaa 30,000 oo askari oo ilaa 10,000 oo macawisleey ayuu haystaa 10,000 ku filan ayaga dham 10,000 ayaa ku filan iyo macawisleeyda ku filan laakiin waxa muhiimadu waxay tahay saraakiisha siyaasiyiinta mucaaradka ku xiran oo dhan in la bedelo oo ama reesta laga dhigo ama meelo kale la geeyo مثلا kuwa halkan shabeellada dhexe jooga kale jubooyinka la geeyo iyo laga tuuro shabeellada hoose oo kale laga tuuro baayo boqol laga rido kuwa kale oo maxaa la yiraahdaa ishig wasaaradda iska fadhiyo lacagta qaato oo khibradda leh la soo kiciyo hala keena ayaga qabiilkan la isku maaratay ciidamada la leeyahay abgaal baa dagaalka ku jabay waxaasina la iska daayo meeshaan qabiilka ma dagaalamay ciidamada qaran baa ka dagaalamay dhul abgaal ha ahaato laakiin ciidamada meel walba ka dagaalameen dhulal badan baa jira oo ciidamadu ka soo baxeen oo shabaab qabsaday kuwa kale waxa jira xataa laga soo qabsaday ciidanka oo xoog looga soo saaray way qabsanayeen dib u qabsanayeen dib isku abaabulayeen way dagaalamayeen laakiin sababta hadda halkan abga loogu maxaa la yiraahdaa loogu eedeynayo aniga ma garanin meesha ciidanka Soomaaliya dhama ka dagaalamayay waxaasna waa kala qaybin weeye siyaasadaasna abgaal gooni loo eedeynayana mucaaradka iyo shabaabka ayaa isla wadaan oo rabaan inay ciidanka iyo dawladda iyo shacabka ay ku kala niyadjibiyaan wixiina aysan hawshiina hawl qaran ayadoo laga dhigo hawl qabiil hawlaasna shabaabka ku shaqeysta waxaan idin leeyahay markaa hal digtoonaado dawladana hal taageero ciidamadeedu waa geesiyaal waa wiilal maaragtay dagaalamaya dalkooda iyo dadkooda inay difaacaan ay diyaar ka tahay naftoodana inay u huraan maaragtay ay diyaar ka tahay laakiin waxaa la rabaa hoggaan fiican iyo siyaasad wanaagsan in loo dejiyo dawladuna ay dib habeyn isku samayso sarkaal ku soo fashilma dagaal laguma celiyo sarkaalka hadduu ku soo fashilma dagaalka waa la bedelaa ama reesta laga dhigaa ama maxaa la yiraahdaa ishig meel kale loo bedelaa waxa kaloo la sameeyaa baaritaan wixii qaladkan keenay yaa ka dambeeyay yaa waxaan fashilaadan maxay ku dhacday in ciidan ilaa 3,800 ilaa 4,000 gaaraya oo xarunta dhammayd ee dagaalka laga hogaaminayay galmudug iyo Hirshabelle ay taliyaasha dhan joogaan si sahlan in loo qabsado wax sahlan ma dabcan waxa jira wax oo maaragtay waxa la yiraahdaa undercover jira oo ciidamada ku dhex jira oo maaragtay isha ciidanka fashilinayo oo niyad jibinayo oo markay xabad dhacdo baawurta fuula dhaaya saraakiisha noocaasa waa in ciidanka laga dhex saaraa meeshaana loo baahna 100 sarkaal oo maaragtay isha tagtay wax loo baahan yahay saraakiil dagaalamaysa oo ciidamada taliyaasha horimaha guutooyinka maxaa la yiraahdaa ururada kaliya iyo saldhigga dhexe taliska dhexe inay joogaan waxa kale oo dhan laga soo saaraa siyaasiyiintan xildhibaanadan dadkan iska yaacaya tiktokeraydan wariyaashan khalaas dawladdu wariyaha oo national tv u shaqeeya iyo wariyaha ciidamada militariga bas ha tagaan meesha iyo haddii sirdoon uu jiro
waxaa kaloo ku talin lahaa in maaragtay militariguna uu samaysto military intelligence wax la yidhaahdo Somali military intelligence oo xogta u aruuriya nabad sugidda keliya ayaan lagu halaynin ciidamadu waa inay sahan leeyihiin waa inay maaragtay maxaa la yidhahdaa intelligence leeyihiin waa inay ayagu ay maaragtay isheg sirdoonno qaasa ay leeyihiin oo waxyaalaha qaarkood maaragtay isheg xataa aan lala wadaagin nabad sugidda caadiga ah nabad sugidda sababta nabad sugidda ogna waa booliis nabad sugidda waa booliis waa xuraamin iyo waxun bay ka shaqaysaa waxbay soo xuraantaa waxaase sheegtaa inkastoo ciidanka ay la shaqayso oo muhiim ay tahay haddana waxaa la rabaa ciidanku inuu leeyahay markuu dagaal noocaana ku jiro military intelligence inuu leeyahay waa in salaamaya waa aniga cali xirsiyo idin leh ismaqal dambe oo xiise leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu